hal eray aan idin idhaahdo intaan reer hebel ku haynay huuhaa iyo hadalla beena haddii qayrkana hayaamay dayaxa hooy laga samaystay higsada heerkaa la gaaray dadaalaa waa helay war buugaashays waa la akhri waana la daboolay waxaa hore loo yidhi siday diintu nagu tiri dayaxana ha dhaafte khayrkaa derajaduu helay rabbi kaama daahine dadaalgaari doontide war saas maahan ha ka dayrin weligaa noloshaad la deris tahay ha u doodin abidkaa mid kaloo ku dayashaa weeye war saas mee heestiinku kudhidheelen lanwiin ma booraaw been waa ogaadey ilintay barooje biyahan dareera warrag waaweyn baa nahayo wixii aflagaadahay waa naga reebayihin salaad war ninka galmudug u ammaanay maxaa kabtaa warnimayo war ma haysaane guddigii difaaca golaha baarlamaanka maanta waxay la kulmeen wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyihii xoogga dalka war dagaal maa la qaadi rabaa warka naga suga nimanyow waxay yidhaahdeen milatariga magaalada dhexdeeda dadka shacabkaa ku dilaya lama aqbali karee xaggee ka keenteen waxaas aryaada wasiirka gaashaandhigu waxaan maqlay waa wiil yaroo qurbaha laga keenaye milatariga iyo booliska ma kala yaqaan yaa askar baa u kala sokaysa asagaa xukuma waana wada asgare waryaada dalka been baad ka sheegtaan mar kasta waxaan la aqbali karin inaad naga akhrisaan wasaarad gaashaandhig miyaa cidaan aqoon loo magacaabi karaa qaanuunku se ogolya xoog badana kaala diid aryaadaha xabad kale ma ogidiine madaxweynaha soomaaliya taliyaha ciidanka ah darajadiisu maxay tahay isbatoore ma gaarin war darajadiis anikiin sheegay safaylan dhegansoy nasta digtoonow way aryaadaha war ma taqaaniina warka miiga kore haysiin mase madaxweynuhu wuxuu yidhi nimanka mucaaradka sheegahaaya mucaarad maahana waa siyaasiyiin xanaaqsan wuxuuna yidhi dantooda gaarkaa waayo waxay u socdaane danguud umaba socdaan waraadha kuwa madaxweynuhu sheegay madaxda geedland miya war koobay ka yihiin war madaxweyne alsayid axmed madoobe wuxuu booqasho ku tegey furimaha jubbada dhexe ee ciidamadu ka dagaalamayaan wuxuuna yidhi dagaalka shabaab sidii la rabay looma gelin dawladduna garab nuguma siin hadda awowgii lagu fadhiga ka kaca warnimiya walmooshiidina madawiine koonfur galbeed ensharaxano gebeer yo hata habati aamine mad mursal leeraw walaagii shabaab oo soonahan laka aragaw sifee warti hato ka horna maadaama doorashadii inta ka galaay doorashadii baydhowli kuga wadaay magaaga gadaal lan akriyay yaaquub ali lanqori hata koe aamine mad mursal leeray waana madawiine anikee warti walaay gashin ana sifee warti gabaroodha waxaan maqli jiray aaminay xusuusnow hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranine afganadkuu ka soo baxo uma talisid adigu war dheereen sidee wuday aryaadaha wasiirka waxbarashada goodax barre wuxuu yidhi baarlamaankaa dawladdu ka shaqayla'dahay dhibkana iyo kaa abuure berig gashowna iyo kaa dhib iyo wax ka sheegin iyo dulmi wada war markuu wasiir noqday inuu xildhibaan yahay ilowmiya war goodax barre asagoo wasiirka arrimaha gudaha ayuu u ololay jiray in ra'iisul wasaaraha xilka laga qaado waana ka shalaayi jiray sida lagu arki jiray marka hadda matiyoo kale arrintu war goodax barre ayaduuba eedayo ra'iisul wasaare damba mucaaradi ma war goodax barre waa sargaalka nabad iyo nolol ugu firfircoon aryaadaha shabaab hoosunkoowa jubbada hoose ku taalla ay dad masaakiina ku dileen qaarna ku afduubteen dhuxulay masaakiinahay ahaayeen baabuurtoorina waa ka gubeen war meesha sarkaalka ajnebiga oo afghanistaan u dhashay lagu dilay waa shabeellada hoose milatarigaa dilay shabaab buuna u dagaalamayay war afghanistaanna maxaa noo keenay uurweynaad ha u dhintee daalibaan muxuu ugu dagaalami waayey haddausan meel joogeen iimaanka allaha ka qaadin talabeelaga tuurakabato buurotoora boorma inseedu waaye jilib marka mayshaani jini wareeriyo ducadu waa bannaanta minay uur weyn lahayd ma mantaanaysi dameeqay dhashahe war wax aroos qaran la dhahaa magaalada lagu qabanaya maqlahaye ma la gaaray wakhtigiisa aan ka qayb gala wiilka adeerkiis la dilay iyo gabadha hooyadeed xihan tahay aroos qaran maha waxaa loo samaynaye waa ooyin qaran war waxaas oo dhan jacaylkaa ka tan weyn jacaylkii adeer loo guboo geed ku xidhay hooyo laba reerna kala geeyey oo nabad garaafeeyey oo godob qabiil iyo dhex dhigay aanfa kala goysa gelbiskiiyo arooskiisa qaran yaana garansiiya war saas ma ahayn heeska gabadhu wuxuu ahaa jidmaqaatayaal shar u jooqanoo dadku jawrfa lahaa jacaylkeennaa ka weyn loo joojima war gabarto hata ka hor ma ertay
ashuunkii biisheena eredsaar iyo tilmaange oo erti war meesha la gubay waxa weeye tuulo madheera hoos tagta ciidanka kiyana weeye waxa gubay dadkana ku laayay wixii meesha joogana mid kama dhaafin rag iyo dumar iyo carruur war ciidamada Kenya may ka gorada jarnay ino geel ilo eberka siyaan shabaaba dhamayni eran haatana dadweynaha masaakiinta ha ino dhamaayaan asheenay maaha adow kuma ridayaan hubkay riishada hayaane cadceeday rasaasayn hawadu say u ruxantahay war saraakiisha Puntland waxay wacad ku mareen wax kasta Puntland ka dhacay inay ka hortagayaan yaa moogaata abawo afka batuulees ma leh muxuu leeyahay oo maya wuxuu sheegayaa waryaarahe inta dhegaysta wasiir bayle sidiisa wakiilkan xilkiisa iyo waajibkiisa gudanayn waxba nooma tarayee hanala dhaafo wareerka waxaan ula jeedaa bangiga adduunku wuxuu yidhi Soomaaliya maaliyadii xilkeedii way gudatay lacag baan ku hirqinayaa waa dhisaynaa hanaankeeda maaliyadda lacagta cusub ay soo samaysanayaan annaga qarashka ka bixinayna bayle waa ku guulaystay waaxdiisii kuwa kale amaha ku daysadeen ama hana daayinadeer aryaada bangiga adduunka awal ma naga lahayn markuu intaas oo dhan noo samaynayo wartiidin antiga batama bangiga adduunkuna faragalatan deerteena dhahnin wada noo reebo ku ahe warag la macaamil yaqaana yimid yaa beesada waa maqalnaa mana aragne meeqaana la ka sii haahe war weeyo buush ka dhise waa lagu sawiray waan lagu siinaa lacagta war lacagtan maqalkeeda inuu ku naaxo weeye qof kastoo Soomaaliyeed muuqaal jana war lacagta sheegaysaan daacadnimo ama wanaag baa keentay usula abdul sheega oo ta qaado yaan laga badsanayo way lacagta dad haysi nafsiya lacagtan waa haysatay qaado imaanka iska leeyo lacagta halaysi قند فلتر ربنا كنتي شيء